waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa ciyaaryahanadii ugu fiicnaa adduunka dhinaca kubadda cagta qarnigii 20aad ee aynu soo dhaafnay. waxaana maanta ku bilaabi doonaa taariikh kooban misna xambaarsan nuxur oo uu leeyahay boqorka kubadda cagta reer Brazil Pelé. Pelé waxa uu ku dhashay waddanka Brazil 23 Oktoobar 1940. magaciisa oo buuxa waa Edson Arantes do Nascimento Pelé. aad ayana u adkeyd waqtigaasi in ciyaaryahan uu soo bandhigo farsamooyin lamid ah kuwii uu soo bandhigay Pelé. wuxuuna Pelé ahaa ciyaaryahankii kaliya ee koobkii adduunka la qaaday xulkiisa Brazil 3 jeer, isagoo ku guuleystay sanadihii 1958, 62 iyo 1970. waxaana Pelé uu ahaa ciyaaryahankii ugu goolasha badnaa ciyaaryahanadii reer Brazil saddexdaasi koob adduun. Pelé waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu yaraa ee ku guuleysta koobka adduunka, isagoo 17 jir ayuu xulkiisa u qaaday koobkii adduunka 1958, kaasoo lagu qabtay waddanka Sweden oo isla waddankaasi ay kaga adkaadeen 5 gool. sidoo kale Pelé waxa uu mar kale xulkiisa Brazil u suurtageliyay inay difaacdaan koobkii adduunka 62 lagu qabtay waddanka Chile, iyagoo finaalkii 3-1 afkiicida ugu daray waddankii Czechoslovakia. laakiin Pelé waxa uu sheegay inta badan ciyaarahaasi dhaawacyo soo gaaray kulamadii ugu horeeyay awgeed, waxaana sidoo kale ay dhaawacyo soo gaareen koobkii adduunka ee 1966 lagu qabtay Ingiriiska oo uu 4-2 koobkaasi ku hantay xulka Ingiriiska. dhaawacyadaasi soo gaaray Pelé ayaa waxa ay sababeen in xulkiisa Brazil uu ku haro wareegii hore ee koobkaas, laakiin taa waxaa meesha ka saaray markii uu garoomada soo galay 1970, isagoo mar kale horkacay xulkiisa Brazil oo si indhala'aan ah koobkaasi oo lagu qabtay waddanka Mexico ku qaaday, kadib markii 4-1 ay ku dharbaaxeen Itaaliya. taasina waxa ay ahayd rikoodh cusub oo xulka Brazil u dhigay xulalkii kale ee caalamka, kadib markii 3 jeer ay ku guuleysteen koobkii adduunka. Pelé waxa uu xulkiisa u dhaliyay in ka badan 100 gool, waxaana in uu shabaqa goolka ku hubsado u ahayd Pelé mid aad u fudud, isagoo sidoo kale lagu tilmaamay inuu ahaa nin si dhaqso ah u fakira marka uu kubadda arko ama marka uu la kulmo difaacyo aad u xirfad badan, isagoo markaana goolasha sida uu doono u abuuran karay. waxaana uu ka qayb qaatay 4 koob adduun oo kala ahaa 1958, 62, 66 iyo 1970. ilaa iyo haatan Pelé waa uu nool yahay, waxaana da'diisa ay sii cagcagaynaysaa 79 sannadood. markaad daawateen kadib muuqaalkan, sidee baa u aragtaan macluumaadka aan idinla wadaagnay waayihii isboorti ee boqorka kubadda cagta adduunka Pelé? magacaygu waa Aymad. waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sabskaraab saaratid riix gambaleelka si markaan muuqaal soo gelino aad u noqotid qofka ugu horeeya ee daawada. sidoo kale haddaa muuqaalkan ka heshaana like bul noogu siiya. mahadsan idin.